هاوايو ولا الحليمة واي كودي كسعتي مينيسورا انترناشونال magacayga xaliimo cabdulaahi ayaa layidhahaa waxaana ka shaqeeyaa Minnesota International Health Volunteer as a community health worker aan u shaqeeyaa oo Somali women breast cancer marka yani hadda mostly markaan tago outreach-ka waxaan sameeyaa home visit marka maybe ama 2 women or 3 women or 1 woman marka first of all markaan tago waxaan u akhriyaa calaamadaha waxaan u sheegaa maxay tahay waxaan weydiiyaa risk factorska oo breast cancer-ka qoyskayguba anagu yaraan baan ku curanaa waa fiican tahay waxay tahay waxaa way markaa kansarka markaa kusoo qaad magaciisa yani way ka baqayaan waxay ogyihiin inuu dilaayahay inuu cudur xun yahay marka mostlyna maxay ahayd uma dhici jirin uma badnayn Soomaalida hadda ayay ku bilaabatay marka daas way markay hadda uga baqayaan markay maqlaan cudurkaas waxay ogyihiin inuu dilaayahay cudur weyn oo xun yahay horta dhegeyso khatarta anu khatar uu leeyahay naaskan garan maayo hay naaskan haddii dee feer kugu dhaco wax waad noqon kartaa laakiin naas aan waxbaba ku dhicin baa wax noqonaya aniga waxaa jai mari leh laakiin waan isbaaraya horta waan ka yeelay waxaan kaloo rabay inaan dhaho maxay ahayd waxaa jira waxa la dhaho inuu qofka bil kasta asaga iska baaro naaska oo kaloodhad yar u samaysteen tan waxaa weeye waa isaga waxaa laga wada waa caag sidii naaskiyo kaleete oo kuu sheegaya meelaha burada ay ku jirto iyo sida iskaga baari lahayd marka waa inaad saddexdaada gacmood aad ka dhigtaa saas yani fidisaa saddexda farood dhexe waa inay fidsan yihiin oo kaleeto marka inaad saas ugu baartid markay saddexda gacmood isla jiraan oo kaleeto waxaa laga yaabaa buradii inaad heshid saas dhaadheer ayaa u baari kartaa daartid ilaa saana ugu soo celinaysaa haddana saas ayaa kusii celinaysaa haddii ay markay wixii wax caadi aan ahayn kuusan marka gacanta ay ku dareentid oo kaleeto fartaad la heli meesha fartaad la helaysaa markaas waa markaa ka shakisid marka waxaa weeye marka gabadha markay 20 jir tahay ayaa ku fiican inay bil kasta iska baarto gacanteeda iskaga baarto naaska wixii bure ku jiro kaleeto bil kasta ilaa haday 20 jir ilaa ay ka sii weyntaa oo kale bil kasta iska baarto oo wax marka iska dareento kale waxa fiican aydan inay dhakhtarkeeda aado oo ay u tagto dhakhtarkiya markaas hadhow wuxuu sameeynaya markuu arko ama wuxuu ka dareemo wuxuu u dirayaa wuxuu leeyahay mammogram waa inaad balansataa aniga magacayga waxaa la yiraahaa Dr. Fawzi Abraar waxaanan u shaqeeyaa Health Partners aan dhakhtar ka mid ahay Riverside Clinic iyo waxaan joogaa Regents Hospital waayo waxa weeyaan dumarka Soomaaliyeed ama Soomaaliya markaan joognay dhakhtarka inta badan dadka waxaa la geyn jiray oo markuu qofku aad u buko markuu dadku dhakhtarka ay tagaan inta badan ku dhiman jireen waayo dadka intooda badan waxay ka yimaadeen hayjadaha ama wax loo yaqaano rural area dhakhtarro waaweyn ma jireen marka ay yimaadaan la keeno dhakhtarka weyn ee regionalka waa markuu cudurku aad ugu dhacay marka way ku dhiman jireen marka dhakhtarradu dadku had iyo jeer waxay yani dhimasho bay ku xidhiidhiyaan عليكم السلام سنتهاي خير ولا لا وبح بالي هذا ترجمان صومالية أنا ها بلن بان ولا لا فاطمة اللي ده أنا جنا برشونكس early detectionka waxa weeyaan mammogramka haddaad tegtid markuu dhakhtarka ku yiraaho teg waxaana 40 jir haddaad dhaafsan tahayna mammogramka inaad tegtid weeyaan mammogramku wuxuu burada soo saarayaa 3 sano iyadoo yar 3 sano ka hor markaad adigu aad gacantaada ku dareemaysid marka 3 sano ka hor hadii aad buradiina gacanta u soo saaray iyadoo yar waa laga hortagi karaa kansarka waa marka waa la daweyn karaa burada yar baa laga bixinaya marka mammogramku nolosha yani qalni surgeryga ama chemotherapyga ama xitaa noloshiina ayuu save garaynaya
marka bukaan socodku soo galo qolka waxa ugu horeeya ee aan qabanno waa hubinta in warqadda taariikhda qofka aan eegno inay sax yihiin. Waxaan u sharaxnaa waxa aan samaynayno oo ay ka mid tahay qaadista 4 sawir. Waxaan u sheegnaa in ay nafta isku celiyaan inta sawirka la qaadayo. Qaadista sawirkuna ay wax yar qaadato. Waxaad ku soo dhaqaaqaysaa mashiinka naaskaaga, halkan ayaa jiifinaysaa, marna naaska midig marna naaska bidix. Mashiinka ayaa korkaaga imaanaya oo kaa qaadaya sawirka. Xanuun ma dareemaysid ee waa dhibsanaysaa. Marka uu sawirku dhaco isagaa kor isu qaadaya. buro aad iska dareentid dhakhtarkaa tegaysaa. dhakhtarku wuxuu ku saarayaa mamogramka la akhriyayaa. marka waxaa dheecaanka lagaa qaadaya. dheecaanka wuxuu soo saarayaa buradani inay fiican tahay. hadday buradani kansar noqotona specialist baa lagu dirayaa. burooyinku inta badanna kansar maaha, waa burooyin aan kansar ahayn oo buro fiican. Magacaygu waxaa la dhahaa Dr. John Van Kam. Waxaan qaabilsanahay qalitaanka naasaha iyo qaybta kansarka. Qanjirada naasaha ku jira kansar ma ahan, laakiin waa in aad iska baartaa. kansarka marka dheecaanka lagu ogaado inuu kansarkani yahay kansar xun oy buradani tahay kansar, waxaa lagu dirayaa surgeonka. marka surgeonku waxa weeyaan saddex waxba lagu daweeyaa. mid waxaa lagu siinayaa dawooyin chemotherapy la yiraahdo afka laga qaato. dawooyinka chemotherapygu kansarkii bay dilayaan. waxaa jira radiation oo ah raajo, iyagana kansarkii bay dilayaan. waxaa ta kale saddexaadna waxa weeyaan qalniin, in meeshii kansarka qabtay la jaro. markuu aad naaska u weynaado waxa weeyaan dumarka Soomaaliyeed waxay yani aaminsan yihiin qaarkood in cudur kasta ilaahay keeno. waxa weeyaan marka ilaahay baa cudurkan keena, marka ka hortagku adigu bili aadmi kama hortagi kartid, ilaahay unbaa ka hortagi kara. laakiin taasi way bedelmaysaa imika, waayo dadkii waxay u tagayaan dhakhtaradoodii. communityga imika waxaa jira outreach workers wax ka shaqeeya oo dumarkii TV-ga uga sheegay in aad haddaad tagtid mamogramka inuu noloshaada dheeraynayo ama cudurkan laga hortagi karo.